Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhowaada saaxiibadeena ku xiran channelkeena Manshiil Media. Magacaygu waa Ayuub Cabdiqaadir. Kusoo dhowow muuqaalkeena maanta. Muuqaalkeenan maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dhacdadii indhaha caalamka ay ku wada haysay ee Rayaan Khalid. Waxa uu u dhashay dalka Morocco, da'diisuna waxa ay ahayd 5 sano oo keliya. Nasiib uma uusan yeelan inuu ku sii dul noolaado dunidan. 4 bishii February oo ku beegnayd maalinkii Talaadada ayaa la waayay. Waalidiintiisa oo meel walba ka raadinayay aana ka rajo dhigin dadaalkii ay ku heli lahaayeen wiilkooda ee Rayaan, nolol ama dhimasho. Balse waxa ay ogaadeen waalidiintiisu inuu ku dhaxay ceel aan sidaas uga fogeyn. Ceelkaas oo dabool fiican saarnayn ayuu ku dhacay Rayaan. Dhererka ceelkana waxa uu ahaa 32 mitir. Ceelkii uu ku dhacay Rayaan waxaa loo sameeyay caawinaad si walba oo looga soo badbaadin lahaa godka. Qiyaas wiil yar oo da'diisu tahay 5 sano oo keliya oo ku dhacay ceel dhererkiisu dhan yahay 32 mitir, aanan helayn oksijiin, kuna jiray muddo 5 maalmood ah. Ma kaga soo bixi karaa wax nolol ah? Markii ceelka loo riday kaamarad ayaa lagu arkay inuu meel ceelka ka mid ah beerka ku hayo, waxaana loo fidiyay caawinaad sida in loo geeyo oksijiin iyo cunto, maadaama uu 5 maalmood waxba uusan cunin. Waxaa goobta joogay dad yaqaana, khibradna u leh ceelasha in ay ku dhacaan, balse waxaa nasiib u yeeshay wiil kaasoo lagu xushay inuu jidhkiisu dhuuban yahay si uu wiilka uga soo saaro ceelka. Balse wax walba waxa ay isbedeleen markii wiilkii soo badbaadin lahaa ay ku dhagtay oksijiinta, waana laga soo saaray asagoo miyirkiisa doorsoomay. Injineeradu waxa ay ku taliyeen in ceel kale laga aqodo agtiisa, midaasna waxa ay leedahay khatar badan sida inay ciiddu ku soo dunto Rayaan. Si midaas aysan u dhicin loona badbaadiyo, waxaa la keenay tuubo ka samaysan bir si aynan ciiddu u soo dumin. Qodidda ceelka kale waxa ay qaadatay muddo dhan 5 maalmood. Wax walba waxa ay isbedeleen kadib markii laga soo saaray Rayaan ceelka, waxaana markiiba loola cararay isbitaalka sida xaaladiisa caafimaad loo dabiibo. Muddo saacada ah ayuu noolaa Rayaan, waana uu dhintay. Dhaqaatiirtu waxay sheegeen in jidhkiisa uu galay qabow badan iyo oksijiinta oo aad ugu yarayd. Allah u naxariisto Rayaan Khalid.